warbaahinta dunida ayaa siyaabo kala duwan waxay uga qoraysaa xogta diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo shalay gelinkii dambe ku dhacday meel u dhow deegaanka Xiindheere ee gobolka Galgaduud oo Al-Shabaab ka taliyo. diyaaradan oo qaramada midoobay leedahay lana socdeen saraakiil Soomaaliya ajaaniba ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan waxa ay siday markii ay degaysay. wargeys ka soo baxa dalka Hindiya oo la yiraahdo The Times of India ayaa maanta qoray in diyaaraddu ay waday hub loogu talagalay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Mudug. wargeysku waxa uu sheegay xogta inuu ka soo xigtay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo aqoonsiyadooda la qariyay. warbaahinta reer galbeedka qaarkood ayaa iyana soo xiganaya saraakiil ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa iyana ay sheegeen in diyaaraddu ay siday daawooyin loogu talagalay ciidamada dowladda, qorshuhuna uu ahaa in ay dhaawacyo soo qaado. waxaan ilaa hadda aan la ogeyn wadamada ay u dhasheen ajaanibta diyaaradan la socday. qaramada midoobay waxa ay sheegtay in weli xogta diyaaradan ay baaris ku wado, hase ahaatee waxay xaqiijisay in diyaaraddu ay degtay kadib markii cilada ay ku timid. diyaaradaha noocan oo kale ah oo qaramada midoobay leeyihiin ayaa furimaha dagaalka ee dalka geeya saahida ciidamada, waxaana ay magaalada Muqdisho u soo qaadaan dhaawacyada iyo meydka askarta Soomaalida. ururka Al-Shabaab oo maamula deegaanka diyaaradan ku degtay weli kamaysan hadlin dhacdadan, hase ahaatee warar aan helayno ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay diyaaradda dab qabadsiiyeen oo gubeen.